maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa xukun dil toogasho ah waxay ku xukuntay gaashaanle sare Cabdinaasir Xoosh oo ka tirsanaa ciidamada badda Soomaaliya. waxaa lagu eedeeyay inuu dil bareera u geystay taliyii ku-xigeenkii hore ee ciidamada badda Soomaaliya Sareeye Guuto Saciid Aadan Yuusuf Saciid Marino. maxkamadda ciidamada ayaa horey u dhageysatay kiiska waxaana ugu dambeyntii ay maanta xukuntay dil toogasho ah in sargaalkaasi lagu fuliyo. gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida Sareeye Guuto Liibaan Cali Yarow ayaana xukunka ku dhawaaqay. ujeedo xukun maxkamadeed maxkamadda sare ciidamada qalabka sida markay aragtay rafacaanka gaashaanle sare xoogga dalka Cabdinaasir Xoosh Maxamed 54 jir ah ina Faadumo Cabdullaahi Maxamuud ku dhashay Xamar oo ahaa taliyihii raxanta doomaha ciidanka badda xoogga dalka Soomaaliyeed markay aragtay xukunka maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida soo baxay 20kii bishii 2018 oo ay ku xukuntay gaashaanle sare xoogga dalka Cabdinaasir Xoosh Maxamed dil toogasho ah. maxkamaddu markay aragtay qiraalka rafcaanlaha ka hor bixiyay garsoorka maxkamadda ciidamada qalabka sida oo ahaa bistoolad uu gacanta ku haystay xabad ka dhacday madaxa ugu dhacday akis marxuum Jarnaal Saciid Aadan Yuusuf Saciid Marino sidaasna uu ku dhintay marxuumka. markay dhageysatay markhaatiyaashii la horkeenay maxkamadda marag furkii ay bixiyeen oo ahaa in rafcaanlaha xabad uu ka riday bastooladiisa ay madaxa ugu dhacday akis marxuum Jarnaal Saciid Aadan Yuusuf Saciid Marino. markay dhageysatay doodii dhinacyada xad ilaalinta ciidamada qalabka sida iyo qareenka difaacayay rafcaanlaha maxkamadda sare ciidamada qalabka sida waxa uu cadaatay in akis gaashaanle sare xoogga dalka Cabdinaasir Xoosh Maxamed in uu yahay dembiile galay dembigii lagu soo oogay. maxkamadda sare ciidamada qalabka sida waxay ku raacday xukunkii maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida horay ugu xukuntay dembiile gacan ku dhiigle akis gaashaanle sare xoogga dalka Cabdinaasir Xoosh Maxamed uu ahaa dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuum Jarnaal Saciid Aadan Yuusuf Saciid Marino. wabillahi tawfiiq. sargaalka maanta xukunka dilka lagu riday ayaa horay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamadu xukun noocan oo kala ugu riday. Cabdicays Cabdullaahi Maxamed, Cabdicays Riili Somali Cable, magaalada Muqdisho.